gorayada keeda lab waxaa la yidhaahdaa haldhaa, halka keeda dhadigna la yidhaahdo goraya cawl. sida oo kalena dhasheeda waxaa loo yaqaanaa halgarac. meesha ay gorayadu ku dhasho amaba ay beedka dhigato waxaa loo yaqaanaa goof. dhasheedu marka ay dilaacdana wiriile ayaa la yidhaahdaa. marka ay weli dhasheedu yaryar yihiin ee aan loo kala garanayn lab iyo dhadiga midka ay yihiin waxaa loo yaqaanaa camare. inta mar wada kacdana fil ayaa la yidhaahdaa. haldhaaga yar wiriilaa loo yaqaanaa, halka goraya cawsha yarna raanyar la yidhaahdo. marka ay koox yihiin gawar baa la yidhaahdaa. haldhaaga keligii daaqa ah ama halka xabbe ee u dilaaca gorayada waxaa loo yaqaanaa haldhure. gorayadu waxa ay asal ahaan kasoo jeedaa Afrika iyo weliba bariga dhexe. inta badanna waxa ay ku nooshahay bannaanada. waxa ay geela iska shabahan luqunta dheer iyo weliba ku noolaanshaha saxaraha iyo oo adkaysiga haraadka iyo biyo la-aanta. gorayadu inta badan koox ilaa tobaneeye ah ayay u wada socotaa, waxaana mas-uuliyadda difaaca qaabilsan labkooda. gorayada keeda lab ee haldhaagu waa uu ka wan yahay kana culus yahay ta dhadiga ah. sidaas ayaa uu ku noqonayaa shimbirka ugu weyn ugana culus caalamka oo idil. miisaanka haldhaagu waa inta u dhaxaysa 100 kilogaram ilaa 150 kilogaram. dhererkiisuna waxa uu gaadhaa 2 ilaa 2.7 mitir. haraatadiisuna waxa ay dili kartaa libaaxa. midabkiisuna waa madow, hareeraha iyo dabada cadaan ku leh. goraya cawsha iyadu waa ay ka yar tahay kan lab. miisaankeedu waxa uu u dhaxeeyaa 90 kilogaram ilaa 110 kilogaram. waxaana uu dhererkeedu gaadhi karaa 1.7 mitir ilaa 1.9 mitir. midabkeedu waa cawlaan oo cadaan barxayo. waxaana jira 3 nooc oo goraya cawl ah. ta koobaad waa mid qoor cas leh, waana nooca ugu weyn dhadiga gorayada uguna culus. xagga cuduradana aad ayay isaga caabin kartaa, aad se uma taran badna oo sanadkii waxa ay dhashaa beed u dhexeeya 8 ilaa 12. ta labaad waa mid uu kurkeedu buluug yahay dhexdhexaadna ah, waxaana ay dhashaa 15 ilaa 20 beed ah sanadkii. ta saddexaad waa ta Afrika ku nool oo ah ta ugu yar uguna dhasha badan leh. sanadkii waxa ay dhashaa beed 50 ilaa 60 xabo u dhexeeya, halka ay jiraan qaar marmar gaadhsiiya 100 beed ah. dhererka beedkoodu waa 15 sentimitir. culayska beedkooduna waxa uu u dhexeeyaa 1 ilaa 1.5 kilogaram oo u dhiganta ku dhawaad 24 xabo oo beedka digaaga ah. sidaasna waxa ay ku noqonaysaa shimbirka ugu beedka weyn leh uguna beedka culus leh haadda oo idil. sidoo kalena dhashooda ayaa ta ugu waaweyn shimbiraha ama haadda oo idil, maxaa yeelay kolka ay laacaanba waxa ay laaleegyihiin digaaga. waxaana uu beedkeedu ku dilaacaa 6 ilaa 7 isbuuc gudahood. gorayadu waa xayawaanka keliya ee aabbaha iyo hooyadu mas-uuliyad isku mid ah iska saaraan ilaalinta ubadkooda. waxaana inta badan maalintii ilaalisa ta dhadig, halka uu labkuna habeenkii ilaaliyo. waana kii abwaanka Soomaaliyeed lahaa: sida goray haldhaagoo ilaashada dhashiiso, marka dhibicda roobkana soo dhawaabaceeyo baalashiisa ugu dhigaan ku dhowrayaa. gorayadu 4 jir ayay ku qaangaadhaa, waxaana ay noolaan kartaa 50 ilaa 70 sano. gorayadu saacadii waxa ay ordi kartaa 30 ilaa 40 mayl amaba 70 kilomitir. waxa dhererkiisu uu yahay 5 sentimitir. sidaasna waxa ay ku noqotay xayawaanka bariga ku nool tan ugu isha weyn leh. culayskiisuna waxa uu ka miisaan badan yahay ta maskaxdeeda. gorayadu waxa ay baalasheeda u adeegsataa in ay isku difaacdo oo ay ku dagaalanto. sida oo kalena xilliyada ay ordayso waa ay kala bixisaa si ay dabaysha isku raaciso. waana shimbirta qura ee lukasta ku leh 2 farood oo kaliya. inkasta oo Soomaalidu aanay aaminsanayn in ay haadda ka tirsan tahay oo ay kuba maahmaahdo la hubsay oo gorayo haad noqon weeday, haddana waxa ay tahay shimbirta kaliya ee aan duulin. waxaana u sabab ah luqunteeda iyo lugaheeda dhaadheer, culayskeeda iyo weliba baalasheeda oo aan duulimaad u diyaarhayn. gorayadu marka ay cid cadow ah aragto in ay fakatana aanay ka gaarsiin karin, waxa ay aastaa madaxeeda, waxaana ay u malaysaa in ay isqarisay oo aanay cidina arkayn. tani waa mid ka mid ah sababaha loogu tiriyo xayawaanada garaadka xun leh. waxa kale oo lagu ceebeeyaa in aanay awoodin ubadkeeda meel fiican oo baydhsan in ay dhigto, maxaa yeelay bannaan ayay iska wadhaa. waana halkii uu Xasan Muumin, abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed, lahaa: gorayadu dhasheeda aboodi bay dhigtaayoo aroorigu ku laayaa, shimbirtuna aroosay ila xidho ammaanay ubadkeeda seexisaa. kala awran labadu iyo caqligii wanaagsani itaal in uu ka roon yahay bal eego u fiirsada. Soomaalidu aad ayay ula dhacsan tahay quruxda gorayada, gaar ahaanna kalab ee haldhaaga ah.
oo abwaanada Soomaaliyeed hablaha ayaaba ay ku ammaanaan.